السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقارير رقية مربوطة السلامية بالعام واحد استوتاج دونا لما مرحلة السومالي لان soo martay iyo hal marxalad oo u dhiman wali Soomaaliland aanay marin lana doonayo bal inay tahay halka marxaladoodna ay la timaado strategy kaga duwan kuwii hore horta Soomaaliland waxay soo martay laba marxaladood hore 30 sano hore Soomaaliland waxay ku dadaalaysay godka ay ku dhacday 1 July 1960 inay ka soo baxdo naf badan baa ku baxay maal badan baa ku baxay dadaal badan baa ku baxay maskax badan baa ku baxay rag badan baa ku dhintay oo meeshii lagu waayay marka Soomaaliland 30 sano hore waxay ku dadaalaysay sidii godka ugu dhacday 1 July uga soo bixi lahayd marka laguma khasaarin 30 sano godka ku dhacday maandeeq waa laga soo saaray 30 sano ee dambe waxaan ku dadaalaynay dib u dhis Soomaaliland in cagaha loo istaajiyo dhaqaalaheeda la dhiso waxaan ku guuleysanay wadan aan la ictiraafsanayn haddana ka dhaqaale badan kana awood badan kana saameyn badan wadana badan Afrika ku yaal waxaan ku guuleysanay 30 sano aan dhisanay dawlad aan ka helin World Bank IMF deema aan qaadan haddana waxay rabtaa taxation ka urursato iyadu ku qabsato waxyaalo badan oo aad u waaweyn marka Soomaaliland la eego waxa weeyaan waa magic ومعجزة ويا مركل الله جيسك أفريقيا because of دين ما قادته World Bank ملك ما قادته حتى أنا وادي أركيا واحد يبغى الصعدة عيد مدينة هالمليون بيكونوا مشاهر بوباين شغالة دولة مشاهر بوباين دولة وشقاية infrastructure كي عافمات كي واحد برشلي سبسيدي بيوده باين وحول everything واحد كستوك عن طلاق هذا Somaliland ما الحمد لله صدق سنة مركا نحن كجرني وين تدالني wax badan baynu qabsanay aan wadanada Afrika haba yaraatay aan qabsan karin صدق sano ee dambe waxa loo baahan yahay inaynu ka baxno difaac oo inagu aynu noqono weerar in horta xuduudaha la soo xiro Soomaaliya sida loola hadli karo iyagoo xuduudaheeni bar kamid ah maqan yihiin marka imika صدق sano ee dambe imika soo socda waa in lagu dadaalaa sidii horta xuduudaha loo soo xiri lahaa وإن حوج على سارة سيدي Somaliland يبقوها لورد إسلها عيد ماذا عركة عيد ماذا عركة عيد ماذا أوركة عيد ماذا خاصة وإن بجت Somaliland لعجها Somaliland هاي ستو لعجها قبضاً وين لاقون ضيع لك الدفاع يدرسيتين كذا وين لاقون ضيع مدحوين المصبيحي وحو experience كويا بوايا أرك كويا هاي لك الدفاع بعيد ماذا كردوه مركا وان فهم كرا the current situation كان بس circumstances كو حيران عيد ماذا دقالة يدرسمه تبر واني أد فهم كرا مركا waxa loo baahan yahay 30 sano imika in strategy la sadgareeyo maxaa lagu dhisay difaac oo Taiwan imika waa wadan aad iyo aad u horumaray marka Taiwan waa in la weydiistaa dhanka dhismaha haday noqoto maamulka hawada haday noqoto ciidamada cirka waa in 30 sano horta in lagu dadaalo in ciidamadana la dhiso xuduudana inaynu soo xirno sidoo kale waa inaan ku dadaalnaa budgetkeena waa in loo qoondeeyo sidii u iibsan lahaa ictiraafka 30 sano waa inaan difaac ka baxna waa inaan weerar noqonaa san weerar ku noqonaynaa waxaan weerar ku noqonaynaa wadana badan oo Afrika oo ka dhaqaale badan nahay baa jira marka waa inaan ictiraafka iibsanayno inaan baarlamaanadooda madaxdooda hatta madaxweynayaasha qaar baan iibsan karnaa maanta alxamdulillah Somaliland maanta wax dhaqaalaha haysto wadanada Afrika ma haystaan marka waxaan kula talin lahaa dawladdu inay 30 sano in la diyaariyo dilaaliin rag ku takhasusay dhanka dilaalka wax la yiraahdo wax kala goyn kara in horta wasiirka arrimaha dibadda ee Faraton laba Maxamuud Cumar wasiirkii Maxamed Cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Somaliland waxa kaloo maamaadna aadan baa joogta Ahmed Ismaaciil Samatir baa jooga waxa jooga Maxamed Biix Yunis baa jooga waxa sidoo kale lagu dari karaa Baashi safiirka Kenya oo xubin laga dhigi karaa Saad Cali Sharax xubin door wasiirkii hore arrimaha dibadda xubin waxaan u aaminsanahay waxaan aaminsanahay anigu in muddo yar hadii ragga dilaaliinta la sameesto oo wasaaradda arrimaha dibadda la maabkeeda u fariisto idinku sadgareeya inay Afrika oo dhan iibsan karaan baan aaminsanahay marka madaxweyne Muuse Bixi waxa oran lahaa bas 30 sano imka soo socda وين Somaliland difaac ka baxda wayna iyadu weerar noqota imika Taiwan waa isku dagii koobaad maanta ma sha Allah Somaliland in laga cawdo China ka cabanay Somaliland leeyahay fargelin bad xulul xudeey ku sameeyay waa guul weyn oo wax weyn loo soo dhigaanay jiray marka waxaan oran lahaa bas 30 sano inaan ka baxno difaac inagu weerar aan noqon marka waxyaalo badan baa inta badan la sameyn karaa imika Taiwan oo kala dawladdu waxa weeyaan waan aad iyo aad baan u appreciate gareynaa Taiwan wax badan baan ka faa'iidi karnaa difaac ka faa'iidi karnaa dhalinyaro waxay noo soo barteen ka faa'iidi karnaa infrastructure kay naga caawin karaan iyo kaabayaasha dhaqaale Taiwan waxaan weydiin karnaa sirta dhaqanka ay kaga maarantay ictiraafka
maxay ictiraafka kaga maaranta